بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا كجوكتان كوسو دوادا Southern Media Corporation ومر والبادكيشان وررك حقيقوين كأه سياسة إسديدن يكو إسعقل إسرسبين يجيس كأفريقيا يمد عالم كبا dhegaystayaal daawadayaal wararka imaanaya magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda Maryland warku wuxuu sheegayaa in dagaal uu ka jiro magaalada Baydhabo hadda dagaalkaasi faahfaahintiisii ma hayna hadda balse laakiin sirdoonka dhagax karis warbaahinta jaamacadda SMC waxa uu ku soo warramayaa inuu dagaal jiro maanta ay ahayd markii wasiirka amniga dowladda Maryland Xasan Cabduqaadir General Amin Madaruur Malaaq Shanle Ibrahim Shaah saraakiisha qaybooda kala duwan ay ku dabaaldegeen 6 bisha Juun maalintii salbalaar laga saaray state-ka Maryland waxayna ku dheeraadeen iyagoo ciidamada la hadlaaya in dowladnimada Maryland lagu soo duulay isla markaasna Maryland loo diidan yahay in cudud ama ciidan ay yeelato darteed loo baabi'inayo marka kolley ma arkayse magaalada Baydhabo sida warka uu sheegayo dagaal ayaa hadda ka jira sida ma arkayse sirdoonka uu ku soo warramay warkaasi ayaanu baadi goobi doonaa haddii Allah uu dalo ka raali noqdo laakiin waxaan rabo waxa weey inaan sheego oo caddeeyo waxa la sheegay in 6 gaari oo baabuurta dagaalka ah iyo waliba sanaadiiq fara badan oo rasaas ah iyo dabajeexiyo AK47 yani hub aad u tira badan in laga qabsaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidaasi waxa soo bandhigay ma arkayse Bonkai miyuu ka socda dagaalka okay sidaasi waxa soo bandhigay taliyaha Baleyska gobolka Banaadir Macallin Mahdi laakiin su'aalo fara badan ayaa ka iman kara waxa la yiri Sheekh Shariif ayaa hubkaasi laga soo qabsaday baabuurtaasi laga soo qabsaday ma xuma laakiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed gurigiisana waxa jooga ciidamadiisi shalayna isagoo ciidamadiisi wata ayuu soo gudbay waan u jeednay marka haddii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay hubka ka dhigayaan oo hub ay ka qabsadeen sanaadiiqdaasi baabuurtaasi kuwii shalay markii ay guriga Sheekh Shariif u guurayeen maxay u qabsan waayeen maxaana loo dhii waayay Sheekh Shariif baabuurtiisi waa kuwaan iyagoo socdaan la wareegnay kamaradaha markay haayeen hubka ma la qabsaday baabuurta ma la qabsaday aawo dadkii ma arkaysa laga qabsadayna dadkii laga qabsaday aawe baabuurta iyo hubka dada saarna Soomaan aawo dadkii aaway waa kuu sheegay nimankan baraha bulshada looga adkaaday sidii dhoocilo oo kale u xifaaltamayaan Macallin Mahdi bakhaarkay galeen bakhaaradooda istaafyadooda ayay ka soo ururiyeen dabajeexyada meeshay soo wareen warbaahintay u yeereen waxay yiraahdeen waa kuwan hubkii aan soo qabsanay intaasay rabaan inay caalamka u sheegaan Soomaali u sheegaan waxay doonayaan jabkooda inay ku qariyaan jabkooda inay ku qariyaan ayay rabaan war qofka bini aadamka ah dagaalku waa sajaal haddii laba nin ay isdagaasho waxa weeye midaa laga adkaadaa waxaan rabaa dagaal inuu jiro sidoo kalena ciidamada dowladda Maryland ee Maqaarsiib ayaa sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud uu duqeeyay meesha la yiraahdo Ceeldoon hadda qofka bini aadamka waxa la rabaa markuu warka sheegayo sida ay tahay waa inuu u sheego salbalaar waa lagu bilaabay
rasaas xooggan dabadaa looga soo dhacay haddana duqayn bay isticmaalayaan ama ay isticmaaleen xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyaadkiisa salbalaar ciidamada maqaarsiib in ay hawada ka duqeeyaan diyaaradaha turkiga maan laakiin waxaa jira diyaarado xasan sheekh maxamuud uu haysto uu isticmaalaha jira markay soo gatay magaca dowladda qarannimada Soomaaliya marka taasi waa taas wixii ku soo kordhaa arrinta dagaalka iyo duqeymaha waanu soo bandhigaynaa laakiin baydhabo dagaal baa ka socda hadda saacadan nimanka maqaarsiib la leeyahay 10 bay dhigayaan now hawadana waa laga duqeeyay dhanka ceeldoon laakiin ceeldoon kaliya ma joogaan waa habeennimo waa la isjafayaa maantana way xuseen ciidamada daraawiishta maal dhaha maqaarsiib iyo madaxdooda meesha la yiraahdo Bonkai dagaal xooggan baa ka dhacaya salbalaar dhigtaa dhiiga loo daray ha ka niyad jabin duqaynta duqayna ceeldoon ka dhacday oo hal mar ah ha ka niyad jabin oo dagaal baa socda hadda xabadda aad bay u socotaa Bonkai waxaa ku yaala saldhig ciidamada salbalaar ay degan tahay ciidamo xooggan ay isugu geeyeen rasaas xooggan baa ka socota meeshaasi dagaalka baydhabo ayuu ka socdaa hadda ciidamada daraawiishtu waxa weeye way ku soo siqayaan magaalada baydhabo gudaheeda rasaasta baydhabo ay ka socotaa now nina wuxuu leeyahay carab jibriil gurigii muxiidiin warbac shadoor taliya ku-xigeenkii hore ee nisa ayaa la galay ade xasan sheekh maxamuud qof walba oo isdhigi karo ka aarso uu ka aarsanayaa iyo mahad salaad marka insha allahu dhegaystayaal daawadayaal labadaasi qodob baan u soo galnay qodob waxaa weeye hubkii la yiri waxaa laga qabsaday sheekh shariif sheekh axmed doraadna waxay lahaayeen xasan cali kayraan hub ka qabsanay marka jabkii waxaa lagu qarinayaa isla hubkooday soo fidsadeen warbaahinta aaway marka dadkii laga qabsaday dadkii ma leedeen ma dhammaadeen waayahay walba dad keena dad AI xataa noo keena dad AI ah xataa soo joojiya hubka kuwaana waa ku qabanay dhaha kuwaana waa hubkii kuwaana waa dadkii laakiin dadna ma hayno hubna ma hayno see wey rasaasta baydhabo ma laga maqlaaya mise beenaa idiin sheegaya macallinka lugeeye beenlow baad u taqaanaan soo ma baydhaba rasaasta ma ka socotaa mise kama socoto ceeldoon duqayn xasan sheekh maxamuud uu hawada ka geystay duqaynta duuray ku dhici kartaa shacbay ku dhici kartaa askari ama askar maqaarsiibay ku dhici kartaa that's not big deal laakiin muhiimadda waxaa weeye ciidamada dowladda Maryland ma ka dagaalamayaan hadda baydhabo 10 ma dhigayaan saacadaasi nimankii salbalaar ah ma la burbursanaya habeennimadan haa maya wallaahi billaahi dagaalku wuu bilowday diyaaradna waa la kiciyey hadda waan ku sheegay diyaaradda ha cunto marka duurka ha u joojinin Soomaaliya wadankii ugu horeeyay oo diyaarad lagu weeraro ahaa 1900 kontameeyadii 60meeyadii 40meeyadii no matter ilaahayna duur buu ku siiyay hadaad digli mirfla tahay duurka ay haysatid Soomaalida kale inta badan ma haystaan wada dhir doog qofka inta ku taagan ma arkaysid beerihina waa bal maxaa ka baqaysaa go ahead diyaaradana qofkii malagii gala way dilaysaa awalba laguma dhaafi lahayn hubka haddii lagaa dhigana waa lagu dili lahaa haddaad dagaalantidna sharaf haddaad marka rajo fiican tahay ha joojinin ha isdhiibin never surrender hubkaaga dhig asaagaaga inuu ku dhaho aan ku fuulo no dhimasho lama huraan waay
dhimasho lama huraan waay dhimasho waa lama huraan maba la joogi lahayn adduunkan laakiin asaagaaga gurigaaga hubka dhig walaashaa gabadhaada xaaskaaga hortaada aan ku kufsado no raxweyney maya marka dad diyaarado kacsaday tabartooda waa dareemi kartaa maanta waxaan arkayay xuska aarare oo baydhaba lagu qabanaa la leeyahay kuwa aadan madoobe taageersanaa meesha ka soo qayb galay hadalka xataa way jaraynayaan saan waaya walaaladeenna bannaanka jara nin walba tooka ha la siiyo war tooka waa lagu ogol yahay salballaar ka saar meesha haddii aad tartantid oo guulaysatid annagaa kula shaqaynayne saar salballaarna hoostaan ku haystaa meeshaanna xukunka ha la ii dhaafo ha laygu ixtiraamo aarareena waan xusaaya been baa sheegaysaa waryaa qabiilkaad doontid noqo been baa sheegaysaa beenlow baa tahay haddaama kuu sheegaya wax kama jiraan wey habar weyselaan tukatay waay no it's impossible salballaar qof la jooga inuu aniga ii sheego salballaaraan la joogaa haddana saasoy tahay ha laygu ixtiraamo in ma arkaysa meeshaan aan xukumo ilaahu baydhabo oo dhan may dudunto riyadii aan arkay ha rumowday wayba u eg tahay inay rumoobi doonto hadda kahor 3 jeeraan sheegay riyadaas wayna u eg tahay hadda wax la qaadan kara maahan fiiri waa la diidan yahay iyo kuwa ku marmarsiyoonaya hadamaa meeshaan loo diidan yahay sagaalaha waxba loo ogolayn kuwa meelaha ku haaya been baad sheegaysaan run ma sheegaysaan dhulkan digli iyo mirifle ma leeyahay salballaarta saara digli iyo mirifle cod ka raadsada haddii aad ku guulaysataan haddii la idinla shaqayn waayo ciddii idinka hor timaadda waan isugu tegaynaa gacantaan saaraynaa laakiin salballaaraan soo xambaartay baydhabe igu ilaalinayaan ila shaqeeya saasaan meeshaan ku qabsanayaa gabdhahana waa la kufsanayaa sidaasi ma lagugu ixtiraami karo because masiirkii gacantaada xataa kuma jiro gacanteena iskaba dhaaf marka annagana waana halaajinaysaa adna waad ishalaajisay marka taasi walaalow igu ixtiraam ma noqon karto sideedaba xukunka ma noqon karo yacni tookaysi sharmuuto maan meeshaan waa la tartamayaa ninkii u qalma deegaankan oo xor ah loo garta haddii la doorto ciddii ka hor timaadaan isugu tegaynaa waa diidaynaa laakiin annaga garnuuto ma nihin mana lagu tookaysanayo tooka waxaa weeye burbur waayo midaan waxba ogeyn tookaan ku imaaduu ku leeyahy waxna ma hogaamin karo sax ma aan sidaasi marka isku soo wada duub magaalada baydhabo dagaalaa ka socda hadda salballaar diyaaraday kacsadeen nimanka maanta ee digli miriflaha ah baydhabo jooga walaalahood cadow diyaarad u kacsaday ku duqaynaayo yah cadowga weliba la joogo oo faraxsan oo shahaadaan qaadanaynaa doorashaa ka jirta meeshaan dhahaya kuwaasi cadow waay walaal ma ahan mana noqon karaan sax ma ahan middaasi ma la ogolaan kara middaasi hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub dhegaystayaal daawadayaal dagaalkaasi magaalada baydhabo ka socda ayaan u soo galnay dagaalka markuu bilowday isla markii dhegtaa lagu soo dhuftay salballaar xabadda way socotaa way soo carareen qaybo ka mid ah diyaarad bay kacsadeen ceeldoon meel ay dhahaan ayay duqeeyeen salballaarta habeennimadan marka duqayntaasi ma baajin kartaa weeye dagaalka ciidamada maqaarsiib birjeexa dowladda Maryland qof walba oo ku doodaya
xukunaan rabnaa baydhabo inaan xukunnaan rabnaa ma xukumaysaa salbalaar meeshaasi ka saar kadib ku faantan waxaa dhahdaa salbalaar waa ka saaray reer maylanow xukun wax iga siiya waa lagu siinaya deegaankaad leedahay xaqaad u leedahay laguma diidayo laakiin qiil looma heli karo salbalaar oo meesha joogta yaa ha la igu ixtiraamo salbalaarna gabdhahay kufsanaysaa taasi ma lagugu ixtiraami karo maanta shalaan kuu sheegay waxaan ku dhahay xafladda lagu qabanayo magaalada baydhabo salbalaar oo baydhabo haysata haddana la leeyahay 6 bisha juun arare dabaaldega maalinta xornimada Maryland baan u dabaaldegaynaa warkaasi timir lafaa ku jirtaan ku dhahay waxay socdanaanay maane waxay socdanaanay maan waxay socdanaanay ma ahan because salbalaartii deegaan ku soo duushay meesh joogto iyada ku wardeynaysa haddana waxaa leedahay 6 juun aan xusaaya marka xuska 6 juun kii saafiga ma hayne dadkan macnii xaq u dirirka in wax laga sheego bas loo yimaado waana la jaraynaa saasa loo jaraynaya shalayna maamulka markuu joogay adinka ka bariisaynay kuwa maanta salbalaar la jiro yesterday adinka u badnaa adinka ka bariisaynay adinka ma arkaysa macnii niikinay adinka mushaar ka qaadanay maantana salbalaar la jirtaan beritoole haddii ciidamada dawladda Maryland ay soo galaan oo meesha qabsadaan waxaa dhigi rabtaan no negative dhigi rabtaan no negative no negative raalli garaynaan dhiibaynaa waa khasbanayn waana la khasbay waana la khasbay walaashaa lagu hor kufsana waana la khasbay walaalkaaga hortaada lagu dilaa waana la khasbay walaalkaaga xabad ku riday waana la khasbay gurigaaga fur waan dhacayna waana la khasbay futadaada fur waana la khasbay sidaasaad u nooshiin daalimiin baa tihiin cid idin qasabta male bani aadan ma tihiin daalimiin la kordhabay la hoos dhabay la shiday la miday la goday oo araadil oo akhasunaas damiir aydan lahayn dadnimo aydan lahayn dad yacni sharaf iyo karaamo aanay lahayn caruurahooda mustaqbalkooda aan wax u dayin yani facooda in ay la goosgoostaan aan diyaar u ahayn yacni dayuusiin baa tihiin nimanka salbalaar la shaqeeyow noocaa doontiin ahaada sharaf iyo karaamo waxaad leedihiin marka salbalaar meesha ka soo saadhaan walaalihiinni gacmaha qabsataan nii ka qasab maan kufsi waa wax jira waa sheegay cabdi maxamed cabdi diyaarad ayaa duqaysay ciidanka Maryland ayuu yidhi waa sheegay diyaarad baa duqaysay ceel doon bay duqaysay diyaaradda dagaalkana baydhabo ka socda hadda Soomaa marka duqayn way dhacaysaa meesha sidii xasan daahir aweys inaan u dhaqanno maan annaga jabka ma qarinayno guushana waa sheegaynaa jabkana waa sheegaynaa sida macallin mahdi manihin macallin mahdi oo inta la soo jabiyey iyo xasan sheekh maxamuud haddana sanaadiiqda rasaasta bakhaarkooda intay soo saaraan dhahayo oo kale hub iyo baabuuraan soo qabsanay oo kale manihin hadda ma fahmaysaa walaalkaas 10 jeer uu soo qoray diyaarad walaalkayow ma arkaysa jumlado kale soo qor hal eray kaliya all the time copy best samaynin dadka ixtiraam sabuuradda kula jooga hadda ma fahmaysaa cadow hala jabi yes marka annagu waxaan war ka dhagaysan karnaa nimankaasi baydhabo jooga oo maanta salbalaar la socda salbalaar guryooda ha u soo diraano haddii ay dad yihiin haddii ay rabaan in la dhagaysto haddii ay rabaan walaaltinimo
haddii salbalaar aanay u soo dirin diyaarad ma aanay nuclear hadday soo qaadaan inta salbalaar meeshaasi ay joogto ay la jiraan waa lala dagaalamayaa ixtiraamna ma helayaan horaanaa loo waayey fiiri caydiid raxweyn oo dhan uu watay 90% jilible besaa ka maqnaa hal qof oo jiliblaa lama jirin inta kale uu watay 4 sano kadibna way soo laabteen iyagoo baaba'ay tabliiqay noqdeen haddana tabtii ay ahaanaysaa weligaa diyaarad soo qaado nuclear soo qaado duqeen nina wuxuu leeyahay diyaarad haddaa aragto waa quwad macnihii lagu filnaan waaye ayaa weerarka soo qaaday diyaarad hadday kacdo meeshaas waxaa ka fahamtaa ciidamada dowladda Maryland ee maqaarsiib inay adag yihiin meeshaasaa ka aragtaa qof diyaarad hadduu aado wuxuu yidhi beentiisa way daraawiishta lama duqaynin bannaankay ku tuureen aniga ma ku dhihin daraawiishta lagu dhuftay ma dhihin waxba beenta ay dhihin waxaan ku dhahay waa la duqeeyey ceeldoon ciidamada Maryland marka diyaaradda hadday wax riddo khasab ma ahan in askarta ay ku dhacdhacdo xabadda diyaaradda markay wax tuurto askarna way ku dhici kartaa ayaan ku dhahay shacabna wuu ku dhici karaa hubkaasi bannaankana wuu ku dhici karaa xayawaanna wuu ku dhici karaa geedna wuu ku dhici karaa ayaan dhahay laakiin ma xaqiijin daraawiishta ayaa askar laga laayay oo la duqeeyey ma dhihin aniga waxaan ku dhahay markii nimankan lasoo fuulay salbalaar oo lasoo weeraray oo xabadda sanka laga soo geliyey dhabarka ay soo jeediyeen diyaarad bay kiciyeen salbalaar way duqeeyeen aan ku dhahay ceeldoon way duqeyn waayeen xitaa meesha dagaalka uu ka dhacayay maadaama gacanta la isla galay marka duqeynta inay dhacday baan sheegay laakiin askarta Maryland in la duqeeyo ma sheegin fahmaysaa saasaan sheegay aniga marka xaaladda magaalada waa sidaasi wixii ku soo kordho biidnillaahi baari waan u joognaa laakiin waxaan rabaa sir yar inaan ka helo biidnillaahi baari sheekh gandarshaawi wuxuu leeyahay hotel jasiirahe DB World dalka hotelka jasiira hadda ayaa lagu amray in la weeraro hotel jasiira intuu ku yaala isagana hotelkii mucaaradka ay ku shiri jireen markay farmaajo ilaahay hadda miya hala weeraraa la yidhi hotel jasiira hala weeraro weerar waa in laga fuliya qaramada midoobe maxay leedahay ma dhagaysana daqiiqad Turning to Somalia, I can tell you that the Secretary General is alarmed about the reports of violence in Mogadishu. He underscores the urgent need for all stakeholders to resume talks to identify a way forward, to avoid reversing the progress seen in Somalia to date, as well as ensuring the protection of civilians and civilian infrastructure. The Secretary General calls on all parties to exercise utmost restraint, refrain from any action that could incite further violence, and resolve political differences through dialogue. Our colleagues at the UN Transitional Assistance Mission in Somalia today noted that the mission and international partners have repeatedly warned in their statements and stakeholders' engagements of the risk of warkaasi wuu cad yahay Soomaan daraadaan inta ka akhrinay xasan sheekh maxamuud gantaalaha ku dhacay consensus haddii la dhaho xasan wuu xanuunsanaya consensus international partners stand ready to facilitate such a dialogue. consensus haddii la dhaho xasan sheekh maxamuud tabcaan waay bes waay wadar ogol waa dhimashadiisi wax kaloo aan kaa dhegaysanayn malaa layidhi wadar ogol marka diyaarad inuu isticmaalayna annaga hadda sheegayna horta bayraktaar way ku daysa maogta tan ugu daranay ahay iyo F-16 marka daroniskii shiino uu ka soo gatay oo xataa berri adigaba aa gadan kartid oo aa ku weerari kartid
ووابسي no problem. هذا ما فهميسا ها تاسنا وان شيغينا. We can tell in life the rest of international community, including the United Nations Security Council, European Union, African Union, IGAD, Arab League, and neighboring states, that former President of Federal Republic of Somalia, Hassan Sheikh Mahmoud, tonight has used air forces against Malian state people, killing innocents, and also mainly children and women nearby Dawa. And this is not untrue, this is true, this is truth. We are telling truth. Hassan Sheikh Mahmoud inuu diyaarada isticmaalayo oo shacabka uu diyaarada ku garaacayo waanu sheegaynaa. waxyaabahan inaan la sheegin uu jecel yahay isaga la qariyo moogta. waaye maxaa soo kordhay? nin la yiraahdo marka diyaarada ayaa isticmaalay. nin la yiraahdo Macallin Saalax ayaa Baydhabo drone la yimaaday. Macallin Saalax waa nin afballaar ka tirsan oo u dhashay Jilible, hooyadiisuna ay murusado tahay. waa taliyihii checkpointyada magaalada Muqdisho hawiyaa soo korsaday, salbalaar baa soo korsatay. haddana nisada saddexda gobol stateka Maryland ayaa salbalaar u dhiibatay. ninkaasi salbalaar inta taagan weeye, laakiin aabihiisu waa Jilible, hooyadiisana waa murusade. ninkaasaa marka wuxuu la yimaaday drones Baydhabo daraad la yimaaday. drone taasi waaye waxa uu shacabka ku duqeeyay Hassan Sheikh Mahmoud. Macallin Saalax waaye oo afballaar ka tirsan oo salbalaar la shaqeynaya. diyaaradihii Turkiga Bayraktar iyo F-16 ma ahan hadda caawa waxa ceeldoon lagu duqeeyay. marka Macallin Saalax hadduu diyaarado qaatay ceeldoon oo dhul eelay ah shacabka uu ku duqeeyay, isagana xisaab baa la dul dhigayaa. dadku waa la yaqaan. haddaad diyaarad qaadatid adoo Digle Mirifla ah, hebel iyo hebel lagu leeyahay, oo shacab aa soo duqaysid, deegaanka aa soo duqaysid, shacabkiisii dadka u dhashay iyaguna way kula xisaabtamayaan. shacab ma duqayn kartid diyaarad intaa qaadatid. Macallin Saalax ninka la leeyahay oo hooyadiisu murusadaha tahay, aabihiisa Jiliblaha yahay. taliya sirdoona lagu magacaabo, waxaad sheego. You have not a right to use armed drones and strike innocents, inhabitants at Baidawa and near Baidawa, and even all of Maryland state areas. That's illegal. We convey this message or this report to the international community. Macallin Saalax is from Mogadishu, employee for former President Hassan Mahmoud, who is going to be dictatorship of Somalia, attacked the former President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, attacked to the former Prime Minister of Somalia Hassan Ali Kaire in Mogadishu last 48 hours. وشيغينا هذا بفهميسا ما قرينينو سفارة way daawanayaan. waaye daroon buu la yimaaday daraad Macallin Saalax. diyaarado daroon ah qaraxyo ayaa lagu xiray diyaaradahaasi. marka wax nafle ma ahan, diyaarado aad u nafle ma, waa diyaarad daroon ah. fiiri diyaaradda daroonka hadda ani xataa mid waa haystaa oo kaamirada lagu xiro. taas oo kale oo la soo gatay oo qarax lagu xiray waayo. markaas kadib meeshaasi markay tagto tuuraysa. marka wax awood badan maahan. diyaaradihii Turkiga waa waabsi waayo. waabsi aan dhihi karaa. diyaaradihii Turkiga F-16 iyo diyaaradii kale ee weynayd ma ahan hadda, ma taalo kuwaasi. waa diyaarad daroon oo yar
oo 10,000 ama 5,000 oo dollar ama 20,000 oo dollar soo siiyey oo lagu xiro way qarax yar meelahaasay qaadaa wax naflemaan yaakh